mudaharaadka beri ay ku baaqeen mucaaradku wuxuu ku soo aaday xilli dalka oo dhan ka jiraan xaalado dhibaatooyin isbeerbeersaday oo dalka oo dhan ka jira gaar ahaan reer Muqdisho oo ay u dheer tahay dhibaatooyinkaas ay dalka la qabaan barakicinta ku tagrifalka awoodda iyo dhulboobka baahsan ee magaalada Muqdisho oo kaliya ku kooban waxaan la yaab leh dowladdii la rabay inay dalkan iyo dadkan dar yeesho oo dadka danyarta ah ay dib u dejin u samayso kuwa aan guryaha aan deganeyn ay guryo u samayso kuwa aan isbitaalada aadi karin isbitaallo u samayso kuwa waxbarashada aan awoodin inay ilmahooda ka bixiyaan waxbarasho ay geyso dowladdii la rabay inay dadkan ay u noqoto hoy ay ku soo hirtaan qof kasta oo duruuftu ay si u duruufaysanna la rabay inay fursad siiso oo ay baalkooda soo geliso waxaa muuqata maanta in ay ayadii cagaf u wadato kuwii deganaa guryaha cooshadaha iyo jiingadaha magaalada Muqdisho ka deganaa in cagaf la gelinayo ayadoo loogu marmarsiyoonayo inuu dhul dowladeed yahay lowla ay jirto inaysan dhul dowladeedba ku jirin meelaha qaar ay duminayaan dhul dowladeedna maaha dhul dowladeedna ma soo dhowaa haddaysan dhul dowladeed yihiin yaa u baneeyay taa cidda sharciyada u siisay in ayagu dumiyaan guryaha dadka shacabka ay degan yihiin ayagu soo maahan dowladnimadu taasoo shacabka maaha dowladnimadu waa shacabka wax ka soo haraana ma jiraan taas waxay maantay dhaxal siisay in mucaaradku ay fursad halkaas ka helaan oo ay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaan maantay dadka guryahooda laga burburiyay iyo kuwa Soomaaliyeed damiirka iyo dadnimada uu ku dambeeyo inay banaanka u soo baxaan bari dadka Soomaaliyeed garab siiyaan waxaan rabaa laba fariimood inaan u kala diro mucaaradka iyo dadka shacabka ee bari banaanbaxyada ka qayb qaadan doona mid koowaad waxay ku socotaa mucaaradka bari haddii aad ugu tala gasheen inaad siyaasad iyo arrimo yacni doorashooyin waxaas aad uga hadashaan mudaharaadkaas waxaan ku baaqaynaa inaad joojisaan inaad dib u dhigtaan in aad biri la dareen noqotaan dadka Soomaaliyeed ee duruufaysan ee dhibban ee guryahooda laga barakiciyay ee waayeel kale ee caruurta leh ee agoonta leh ee camoolaha leh ee curyaanka leh ee nooc walba iskugu jira ee maanta banaanka waran ee qabowga iyo roobka magaalada Muqdisho maanta ka da'aya banaanka u waran inaad fursad siyaasadeed aadna ka aad uga faa'iideysataan dadka Soomaaliyeed codkooda ku hadashaan xuquuqdooda aad u raadisaan garab istaagtaan dadnimada iyo damiirka dowladnimada iyo dadnimada aad muujisaan midna waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed ee biri raba inay xuquuqdooda raadsadaan biri waa fursad weyn oo aad runta ugu sheegi kartaan madaxda faajiriinta ee ganacsatada iyo dhigmiiratada isku bedelay ee dowladnimadii u bedelay meel dhaqaale laga sameeyo meel dadka lagu dulmiyo meel lagu takrifalo waxaan rabnaa inaad biri adinkoo midaysan mid dhul laga qaaday iyo mid aan dhul laga qaadinba biri kala har ma lehidin biri banaanka u soo wada baxa xuquuqdiinana wada raadsada isku xuquuq baatiin midka biri dhulka laga qaaday shalay dhulka laga qaaday iyo midka maanta laga qaaday biri adaa ku xiga midkaagan hadda aaminsan aan dhul laga qaadin ee wali aysan ku soo gaarin biri adu ku soo imaanaya dulmigu xad iyo xuduud ma laha meel uu ku istaagana ma laha meesha kaliya istaaji kartaa waa meesha dadka Soomaaliyeed inta gacmaha isqabsadaan ay derbi adag u dhigaan oo yiraahdaan halka maaha meeshii la dhaafi jiray ha ogolaanina in lagu xadgudbo sharafta iyo karaamada iyo dadnimada dadka Soomaaliyeed in lagu xadgudbo madaxdan afarta qof ah ee siyaasadda aaminsan in dhaqaale laga sameeyo sidaan ognahay anagu dhaqaale ganacsiga laga sameyn jiray laakiin siyaasaddii waxay ka dhigeen dowladnimadii meel dhaqaale laga sameeyo waxaan rabnaa runta u sheegtaan inaad runta u farta ugu fiiqdoon oo tiraahdaan ma aha meeshii dhaqaale laga sameyn jiray meeshan waxaa laga rabaa in qof adeeg bixinaya qof dadka daryeelaya qof Soomaali ah oo insaan ah oo damiir iyo dadnimo Soomaaliyeed ku jirto ayaa dadkan Soomaaliyeed maamuli kara ee qof aaminsan in dhaqaale laga sameeyo dadkan ay yihiin dad wax ma garata oo doqomo ma shacabka Soomaaliyeed dareenkiina meel walba aad joogtaan biri inaa mideysaan ayaa ma aha reer Muqdisho oo kaliya gobol iyo tuulo iyo meel walba aad joogtaan biri aynu dulmiga iyo ku tagrifalka awood aan ka wada hor imaano oo wada diidno qabyaalad male qabiil male qolo gooniya male dulmigu qabiil malahan dulmigu tuulo malahan dulmigu gobol malahan dulmi waa dulmi hadaad biri maanta raali ka noqoto biri adigu kugu imaan doona intuusan adiga kugu imaanin derbi adag iskaga dhig oo kuwa maanta la dulmiyey garab istaag waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.